marshal law waa soo rogidda la soo rogo xaalad degdeg ah oo ay soo rogto dawlad ama daciiftay ama lagu kacay oo xaslan weyday xaaladda amniga ee waddanka gudihiisa ah. macnaheedu wuxuu noqonayaa marka marshal law hay'adaha amniga security-ga ama booliiska oo si military u dhaqmay ama military iyo booliis iyo isu bedelay military labadaba ama sirdoonkiyo labadaba shaqadoodii la wada wareegay. marka haday maxkamada noqoto, haday garsoor noqoto, haday amnigi xasilintiisa noqoto. waa qaabkii dawladda ee rayidka ahaa oo loo rogay qaab militarized system ah. imise jeer ayaa Soomaaliya horay loo adeegsaday sharcigaas goormo ayaysan marshal law waxaa Soomaaliya la soo rogay hadda kii u dambeeyay isbuuci la soo dhaafo waa kii saddexaad. waxaa ka horeeyay 2 jeer oo hore. markii koowaad waxay ahayd markii laga soo baxay dagaalkii 77 oo dawladdii ama taliskii xukunkii militariga ahaa oo dareemay qalqal iyo qalalaase waddanka gudihiisa ah iyo mucaaradad xoog leh oo dadkii hamigii u haminayeen in dhulkii Soomaali galbeed gacantooda la soo geliyo. bijabkii ku dhacay ciidanka dhibaatadii xoog lahayd ee gaadhay ee ka soo gaadhay gudaha Soomaali galbeed markii la galay laguna soo jabay dhinacii siyaasadda lagu fashalmay iyo dawladnimadiisii militarigeennuna xoogiisii ku soo baaba'ay qalab wixii aan lahayn iyo wixii oo dhan oo mucaaradad gudihii bilaabatay inta la isku meesha ka baxo dadkii uu ku guuxay inkastoo la hadli karin oo media jirin, jaraa'id jirin, radio jirin, meel dadkii ay shucuurtooda ku cabiraan jirin. laakiin dadkii public discourse-goodii banaanka uu yaalay waxa ay dadka dareenkoodu yahay in wixii isbedel dhaco oo ay dhici weyday ayaa taliska militariga ku soo rogay waddanka xaalad marshal law ah. qaasatan waxa markii ugu horeeyay lagu bilaabay lagu apply gareeyay gobolkii loo yaqaanay Waqooyi Galbeed oo ay caasimad u ahayd magaalada Hargeysa. dadku inaysan shacabkii wixii maqribka ka dambeeyay aanay socon karin waxa la soo rogay system يعني حافظه أي ضدك إسربور جرينيان حالات بحال جليي governor كميلتري جا ماشي جوجي جنرال غاني والنقطة أسوأ كي commissioner كان ميلتري commander كودين إسقوا أو حيوان وإسقوا قبصدي مركا حالات داس أيا أوجه الرئيس ولا جليي وحكوا حاجي أو إسلاتلس كميلتري وأسيب ودي مركا دم جوال كمدو جليي مجال جال كايو مركا military regime كأوجه الرئيس إن مارشال ولا سوربو waxaa ku soo xigay 2007 January oo xukunkii dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Maxamed Geedi ay ku soo rogeen dhulka ay ka talinayeen way isku dayeen inay Muqdisho ku rogaan waa awoodi kari waayeen laakiin Baydhabo iyo hareeraheeda inta ay joogeen laakiin Muqdishona mucaaradad xoog leh lagu kacay oo dadkii aysan Etoobiyaankii soo galidooda ay ku diideen. marka tan hadda dhacdo waa markii saddexaad oo waddanka la geliyay. marshal law meel kasta oo taariikhda adduunka haddaad akhriso waxay ka soo bilaabeen gumaysiga meelihii ay doonayeen inay qabsadaan ayay ku bilaabeen. taariikhdiisu taasay la bilaabatay wadamadii la qabsaday Australia iyo meelihii la tagay oo cadaanka Ingiriiska ku duulay iyo Faransiiska intaba way rogeen laakiin wax faa'iido oo laga gaaray ma jiro. soo rogitaanka marshal law la soo rogana waxa lagu dhex aqriyaa waxa uu ku dambeyn doono inay tahay burbur iyo baaba. mar haddii xukun jira ama talis uu maciinsado marshal law macnaheedu wuxuu yahay inay xaaladii faraha ka baxday oo uu xasilin kari waayay amnigii loo igmaday inuu shacbigii siiyo ammaan. dawlad sideedaba shaqada ugu horeeya ee laga rabo waxay tahay security provision oo in dadka ay ammaan gelin karto. laakiin Soomaaliya bilcagsi waxa maanta la hayaa Muqdisho dawlad ayada amnigeedii ay hayaan ciidamo ajnabi ah sida AMISOM inay ayadu siiso security dadka iska daa kaba fakari ayadii ayaa amnigeeda meesha ka baxaya haddii African Union ama AMISOM kuwa loo yaqaano ay meesha ka baxaan ama taageerada Ingiriiska iyo Mareykanka iyo quwadaha meesha jooga ee ka caawinaya dhinaca militariga ay kala tagaan. marka marshal law waxa uu nagu hagi doonaa ama horseedi karaa haddaan taariikhda ay 10 ka baranayno baaba iyo burbur iyo dhibaato xoog leh. marka sida ugu habooneed waxay ahayd iyadoo marshal law la maciinsan 2 sano kadib haddii dawladdii la doortay February 2017
ay ku fashilantay 2 sano kadib inay ammaan dhaliso inay is-casisho hadday dad wadaniyiin ku jiraan inay ummadda Soomaaliyeed cafis weydiistaan